asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janaalka mar kale soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantiin maanta waa axad waana kowda bisha saddexaad ee maaj sanadka 2026 dadka qaar labadii maaj ayay u tahay anaga hadda axad ayaa naga sii dhamaanaysa isniinna waa inoo soo galaysa laakiin dadka qaar isniin ayayba joogaanba waa muuqaalkii labaad oo maanta hawada aynu ku kulanno madaxweyne Trump ayaa goordhow shacabka Mareykanka la hadlay waxaana uu ka warbixiyay dilkii saddexdii askari ee ciidamada Mareykanka ahayd ee geeriyootay iyo kuwii dhaawacmay sidoo kale madaxweynuhu wuxuu wareysi siiyay qadka telefoonka ah wargeyska Daily Mail madaxweynuhu muxuu yiri dagaalka ilaa iyo intee ayuu socon karaa qorshihii maamulka Trump uu watay ama dawladda Mareykanku ay wadatay ma ilaa ay hadda sidii ay ugu talagaleen ayuu u socdaa arrimahaasi oo idil ayaa madaxweyne Trump uu ka hadlay balse marka hore soo dhawaada madaxweyne Trump ayaa ilaa iyo markii dagaalka Mareykanku uu ku qaaday Iran uu bilaabmay sabtidii markii labaad la hadlay shacabka Mareykanka oo muuqaal soo duubay bartiisa Truth Socialka ee soo geliyay madaxweynuhu muuqaalkiisa waxa uu marka hore kaga hadlay in howlgalkii ilaa ay hadda sidii ay ugu talagaleen uu socdo dilkii Ayatollah Ali Khamenei ayuu ka hadlay waxana uu sheegay sidoo kale in 48 kamid ah hogaankii dawladda Iran ay dileen 9 markab oo kuwa dagaalka ah ay burburiyeen xaruntii ciidamada badda ay burburiyeen waxana uu sheegay in dagaalka ay sii wadi doonaan ilaa iyo ujeedka Mareykanku uu ka leeyahay ay gaaraan ujeedka laakiin ma uusan faahfaahin laakiin sida muuqata waa iska cadahay waxay tahay in laga taqalluso regime change wax la yiraahdo la sameeyo oo hogaanka Iran dhan laga taqalluso isla markaana hogaan Mareykanka iyo Israa'iil u daacada halkaas la geeyo waxaan ognahay sidoo kale in madaxweyne Trump uu arintaasi dhowr jeer uu horay uga dhawaajiyay haddana waxa la arkayaba in Netanyahu iyo isaga ay shacabka Iran ugu baaqayeen inay mudaharaadii wadooyinka isugu soo baxaan dawladda inta ka harsanna ay afgambiyaan haddaba waa kan madaxweyne Trump oo ma goordhow la hadlayay shacabka Mareykanka arrimahaasina ka hadlayay Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now, was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay dilka saddexdii askari ee ciidamada Mareykanka ee Iran ay dishay waxa uu sheegay in 3 askari ay dhinteen kuwa kalena ay dhaawacmeen caafimaad ayuu u rajeeyay kuwa dhaawacmay waxana uu sheegay arintan inay ahayd mid ay filayeen isla markaana kuwa kale laga yaabo in ay geeriyoodaan laakiin waxa uu sheegay in Iran duulaan ay ku soo qaaday ilbaxnimada sidaas darteedna aysan ka istaagi doonin duqeynta ay ku wadaan waa kan mar kale madaxweyne Trump uu qirayay in 3 askari oo Mareykan ay dhinteen wararku waxay leeyihiin askarta intaasi waa ay ka badan yihiin saldhigyada Mareykanku ku leeyahay bariga dhexe askar ayaa ku geeriyootay fara badan laakiin Mareykanku in ay qarinayaan ayay u badan tahay laakiin inta ilaa ay hadda saldhiga dhexe ciidamada Mareykanku ay sheegeen waa 3daasi askari haddaba waa kan madaxweyne Trump oo qirayay in 3daasi askari ay geeriyoodeen Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the
true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa wareysi dhanka qadka taleefanka ah waxa uu siiyay wargeyska Daily Mail. su'aalo fara badan ayaa madaxweynaha la weydiiyay. su'aalaha qaarkood sida uu uga jawaabay waa arrin la yaab leh. dagaal ilaa intee ayuu socon karaa ayaa madaxweynaha iyo su'aalo la mid ah ayaa la weydiiyay. madaxweyne Trump ayaa digniintan diray waxana uu sheegay in duqeynta ama dagaalka Mareykanku uu ku qaaday Iran laga yaabo ilaa iyo muddo 4 toddobaad inuu socdo. waa muddo bil ah. qorshaha sidaasi ayuu ahaa ayuu leeyahay madaxweyne Trump. maantadii horena waxa madaxweynuhu mar uu sheegay in laga yaabo howlgalka waqtigii loogu talagalay waqti ka hor in la soo gabagabeeyo maadaama ujeedkii laga lahaa inta badan la gaaray. laakiin hadda madaxweynuhu waxa uu leeyahay ilaa iyo 4 toddobaad. 4 toddobaad macnaha waa 4 isbuuc. muddo bil ah ayay u dhigantaa in dagaalku muddo bil ah uu socon karo. waxa uu sheegay in madaxweynuhu ka hadlay dilka 3 askari. waxa uu yiri dad aad u wanaagsan ay ahaayeen. waadna ogtahay uu yiri arrintan inagu waan rajaynaynay in ay dhici karto. laakiin waxa uu yiri nasiib darro mar kale waa ay dhici kartaa arrintan. maxaa yeelay askar kale oo Mareykana mar kale dagaalkan inta lagu jiro waa ay dhiman karaan ayuu ka wadaa madaxweynuhu. madaxweyne Trump ayaa sidoo kalena waxa uu sheegay ilaa iyo markii labaad markii madaxtinimada Mareykanka loo doortay in 3 askari ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee dhintay intii isagu uu madaxweyne ahaa. madaxweyne Trump waxa uu yiri markii aan soo qabanay January horaanteedii kaligii taliyihii wadanka Venezuela Nicolas Maduro hal askari noogama dhiman ayuu yiri. sidoo kale bishii June markii aan duqeynay goobihii nuclearka ee Iran waxa uu yiri hal askari oo Mareykan ah ma uusan nooga dhiman. marka waxa uu yiri arrin wanaagsan ayaan labada marba aan sameynay. madaxweynaha sidoo kale waxaa la weydiiyay waqtiga uu socon karo dagaalkan. sida aan horey idinku sheegayba madaxweynuhu waxa uu sheegay in dagaalkan uu socon karo 4 toddobaad ee soo socota. madaxweynahu anigii hore idii iri maantadii hore waxa laga yaabaa waqtigii dagaalka aan ugu talagalnay waqti ka hor inaan gabagabeeyno. laakiin waxa uu yiri 4 toddobaad ayuu socon karaa. always markastaba qorshaheenu waxa uu ahaa ayuu yiri in 4 toddobaad oo socdo. Iran waa wadan weyn ayuu yiri. marka 4 toddobaad amaba ka yar ama ugu badnaanba 4 toddobaad ayuu socon karaa dagaalkan ayaa madaxweyne Trump uu leeyahay. Trump ayaa sidoo kale la weydiiyay ilaa iyo hadda ujeedkii aad kala haydeen dagaalka ma gaarteen. waxana uu sheegay madaxweyne Trump in uusan la yaabin ilaa iyo hadda natiijada ka soo baxday duqeymaha ay u geysteen qaybo kamid ah wadanka Iran. marka natiijada aan helnay ma aanan la yaabin ayuu yiri. wada hadal miya idin dhaxmari kara ayaa la weydiiyay Iran iyo adinka. waxa uu sheegay madaxweyne Trump ma ogi ayuu yiri ilaa iyo hadda wax wada hadal ah laakiin waxa ay rabaan inay wada hadlaan. waxana ay ahayd ayuu yiri inay wada hadalka ay wadaan toddobaadkii la soo dhaafay ma ahan toddobaadkan. macnaha wada hadalku waxa uu la gudboonaa toddobaadkii la soo dhaafay inay heshiis qaataan ayuu leeyahay. laakiin hadda toddobaadkan wada hadal ma jiro. Iranna dhankeeda waxay sheegtay in wada hadalku meel wanaagsan uu marayay horumarana laga sameeyay. laakiin wada hadalkii oo socdo ay ka war heleen Sabtidii in Israa'iil iyo Mareykanku ay duulaankan ay ku soo qaadeen. laakiin Trump waxa uu leeyahay wada hadalku toddobaadkii hore ayuu Iran la gudboonaa laakiin ma ahan toddobaadkan oo wax wada hadal ma jiraan. xaaladdu faraha waa ay ka baxday. sidoo kalena waxaa la weydiiyay madaxweynaha qorshihiina dagaalka sidii aad ugu tala gasheen miyuu weli ku socdaa. madaxweyne Trump waxa uu yiri sidii aan ugu tala galnay ayuu ilaa iyo hadda ay wax ku socdaan. laakiin waad ogtahay ayuu yiri waxa aan inta badan meesha ka saarnay hogaankii wadanka Iran ilaa iyo hadda. waxana uu sheegay in ilaa iyo 48 kamid ah hogaankii wadanka Iran ayuu ku jawaabay madaxweynuhu inay meesha ka saareen. Trump sidoo kale waxa uu sheegay inay macquul noqon karto in Iraniyiinta waa shacabka in wada hadal ay la sameeyaan laakiin ma uusan sheegin waqtiga ugu dhow
oo wada hadalkaasi uu dhici karo marka madaxweyne Trump wareysigaasi qadka telefoonka haya waxa uu siiyay wargeyska Daily Mail uu ku qiranayo in dagaalkan ilaa iyo muddo bil ah uu socon karo waxana uu sheegay askar kale oo Mareykan in ay dhiman karaan laakiin waxa uu xaqiijiyay wax wada hadal ma jiraan ilaa haddana guulo ayaan ka gaarnay ayuu yiri duqeymihii shalay iyo maanta ka socday wadankaasi Iran oo ay Mareykanku ay ku wadeen Iran iyada nafsad ahaanteedu waa ay duqeynaysaa bariga dhexe sida Israa'iil iyo sidoo kale wadamada qaliijka oo Mareykanku saldhigyo uu ku leeyahay kala duwan marka waan arki doonaa arintan halka ay ku dhamaato Trump waa kan dhahaya ilaa iyo muddo bil ah ayuu dagaalkan sii socon karaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo